masleedahay wiilkan wuu ku jecel yahay sidoo kale ma qof kaa fogba adiguna ma danaynaysaa inaad xaqiijiso jacaylkaas okay ma qof kaa fogba yacni waxaan kala jeedaa isagu kaa fog oo waddan kale jooga ayaad waxaad awoodi doontaa inaad dareento jacaylkiisa ama aad ogaato xaqiiqda kaa qarsoon adiga kuwani maahan ficilo aad ku arkayso ee waa waxyaabo aad samaynaysid ama tijaabooyin si aad u ogaato xaqiiqda kaa qarsoon ragow muuqaalkan kiina maahan leertana siiya gabdhaha nuqashi rabaaye anyway waa iska kaftan anu gudagalna muuqaalka waa 10 arrimood mid waliba natiijooyinkiisa waxaan kula wadaagi doonaa qaybta dambe muuqaalka tijaabo waliba waxaanu samayn doonaa percentage aad ku qiimeynayso tijaabada koowaad waxaad qiimeyn doontaa heerka uu kugu fikiro ilaa 3 maalmood waqti ku filan sii kadibna ka kala jooji oo maalmo ka gaabi hadday dhacdo inuu sidaada oo kale ku joogteen waayo kool amaba uusan mar xitaa ku soo wacayn oo xitaa danan yar aysan jirin waxay u badan tahay in qofkaas aad ku tahay dulsaar ayna ka tahay iska wado tijaabada labaad siduu daacad kugu yahay ayaad qiimeyn doontaa waqtiga ugu dambeeya ee wada sheekaysigiina habeenka weydii waqtiga uu seexan doono kadibna ku dheh aniga qadka haddaan ka baxo waad seexanaysaa miya jawaabtiisa waa 2 mid haa ama maya hadduuba adigu daacad ku yahay seexashadaada kadib muxuu la soo jeedaa weliba waqti dambe anyway markii la gaaro waqtigu ku dhahay waan seexdaa ku dheh habeen wanaagsan waan seexanayaa hana seexan waxaad sugtaa 15 ilaa 30 daqiiqo waxaad eegtaa inuu online yahay waxaa dhici karta inuu kaa qariyo sidaa awgeed waxaad u dirtaa emojigan hadduu ku soo jawaabo ku dheh hurdada ayaan ku caajisay marnaba ha u sheegin tijaabadaada tani hal habeenaad samayso go'aan kuma gaari kartid ugu yaraan waa inaad samayso asbuuc waayo waxaa laga yaabaa qofka aad tijaabinaysid habeenno qaar inuu dano ula habsaamo laakiin asbuuc habeen walbana sidaasuu yahay waa calaamad sheegta inuu jiro arrimo kale tijaabada saddexaad waxaad qiimeyn doontaa fariimahaaga sida ugu baahan yahay waxaad u dirtaa fariin waqtiga uu mashquulka yahay waxba kaama gelin mashquulkiisa waxaad u raacaysaa waxba igama gelin mashquulkaaga kaliya adigan kuu baahanahay waanan ku doonayaa 2 mid ayaa kaaga soo baxaysa waa mid ku jecel horeyna wuu kuu soo jawaabayaa oo mashquulkiisa adiga uga muhiimsan midda kale waa mashquul waxna kama gelin fariimahaaga tani hal ama 2 kuma qaadan kartid go'aan laakiin waa inaad ugu yaraan 4 maalmood aad samayso hadduu sidii yahay uusan jawaab ku siinayn ilaa dhowr saac mooyaane waxay tahay inay jirto wax adiga kaa qiimo badan waana mashquulkiisa tijaabada afraad tani waxaad ku qiimeyn doontaa sida uu xasuusanayo balantiina waxaad dhigataan balanno oo xoogaa ka yara fog asbuuciyo sidee tusaale ahaan waxaad dhahdaa maalin hebel waxaan leeyahay tartan oo tiim kale ayaan la tartamayaa maxaad ii rajaynaysaa kadibna ku dheh maalin hebel waxaan rajaynayaa inaad noqon doonto qofka ugu horeeya ii hambalyeeya haddaan guulaysto tani muhiim maahan inay u dhacdo sidaad doonaysid balse ugu yaraan waxaad ogaataa inuu xasuusan karo oo ku weydiin karo waxa kala kulantay tartankaas amase ugu yaraan uu ku dhaho guul baan kuu rajaynayaa maalinta tartanka aad gelaysid waxay calaamad weyn u tahay in qofkaas aad ku jirto qalbigiisa sidoo kalena waxay calaamad muuqata u tahay inuu in badan kaa fikirayo uuna jecel yahay guushaada haddii natiijadaadu noqoto inuu aad uga fikirayo ogolow inuu yahay qofku u baahan adiga haddaysan sidaasi u dhacinna ogow qofkaasi ma ku xasuusan karaba tijaabada 5aad waxaad qiimeyn doontaa xasuusta uu leeyahay xiriirkaaga adigu waad og tahay xiriirka dhabta iyo jacaylka dhabta inaan marna la ilaawin lana xifdiyo lagana dhigo xasuuso muhiima waxaad samaysaa waqti degan oo aysan jirin buuq xanaaqi xitaa daal ayaad waxaad weydiisaa xilliga uu bilowday xiriirkeenna iyo waxyaabihii la yaabka lahaa ee uu ka arkay adiga hadday dhacdo inuu xasuusanayo wax waliba una og yahay waxay u badan tahay inaad maankiisa ku jirto waxayna u badan tahay inuu ku xasuusanayo tijaabada 6aad waxaad qiimeyn doontaa inuu ku jeclaa marka uu kala soo xiriirayay
Macaan waxaad ii sheegtaa sawirkii ugu horeeyay aan kula wadaagay dharkaan xirnaa midabkiisa. Waxaa laga yaabaa tan inay ku yara adkaato, balse waxaad dhihi kartaa midaan. Waxaad ii sheegtaa markaad iga helaysay sawir noocee ayaad borofiilkayga ku aragtay oo ku soo jiitay adiga. Haddii aadan dabeecad u lahayn inaad sawirkaaga saarto borofiilkaaga, wax xun ayaa kuu saarnaa. Hadduu qofkan hore kuu doondoonayay ama si uu ku jeclaa, waxa uu samayn inuu ka qaato screenshot ama uu la dego wax walba ku saabsan borofiilkaaga. Fiiro gaar ah, tani haddii u dhici weydo sidaa rabtay waa caadi, ha kaga xumaan, waa banu aadam, waxaana loo abuuray ilowshiyaha. laakiin haddii aad ka hesho ama u dhaco sidaad u rabtay, waa okay, wuu ku jeclaa. Tijaabada 7, qiimeyso sida uu kuu rabo adiga. Haddii aad tahay qof mar walba suga wicitaankooda, misna aysan iyagu ku soo wacayn, markaan waxaad u baahan tahay inaad wacdo, weliba dhowr maalmood aad wacdo, wax badan aad waqti kula qaadato. Hadduu yahay qofkaas mid markiiba kaa ajiiba koolka oo xitaa koolka koowaad horey ka qabta, waxay u badan tahay in qofkaasi ku doonayo adiga. Waxaad ogaataa qiimaha jacaylka marna kuma ciyaaro. Qofkaas waa mid yaqaano rabitaankaaga, waa mid yaqiinsan jacaylka aad u qabto. Hadday dhacdo in qofkaas aanu kala jeclayn koolkaaga ama uusan dib kuu soo raadinayn, ugu dambeyn waxaan ku oran lahaa meesha saga tag, xiriir caafimaad leh ma yaalo. waxaana ku leeyahay haddii aad sii joogto waad ku bahdilmaysaa oo keliya. Tijaabada 8, waxaad qiimeynaysaa in qofkaas kaa helay adiga. mid ka mid ah sawiradiisa si weyn oo ammaan, wax badan oo ammaan ah ka sheeg, kadibna waxaad ka codsataa in mar walba sawiradiisa kuu soo diro. hadday u badan yihiin sawirada uu soo diraayo kuwii aad ku ammaantay ama malaabistii aad ku ammaantay, hubaal wuu kaa helay. haddiise aysan sidaa noqon oo uu caadi malaabistiisa kala xiranayo, waa caadi. waxaa macquul ah in sheygaad ammaantay aanu isagu ka helin. ku qaado markaa. Tijaabada 9, waxaad qiimeysaa waqtiga ugu badan ee uu kula qaadan karo adiga. waxaad siisaa waqti badan, 30 daqiiqo ilaa 2 saacadood oo wada sheekaysi ah. kolkiiba hadduu ku dhahayo waan caajisay, waan baxayaa, mashquul ayaan ahay, anigaa ku soo wacayo iyo wixii la mid ah, waxay tahay inuusan waqti sidaa u badan kula qaadan karin, ama xitaa uusan ku rabin, ayna jirto waxyaabo kale oo uu ordaayo. hal maalin ama 2 maalin go'aan kuma qaadan kartid. waa inaad caadadani ku aragto ugu yaraan ilaa 4 maalmood. hadduu yahay qof mashquul badan, aadna ogtahay inuu yahay qof mashquul badan, sida qof shaqeeya ama qof waxbarasho ku jira, waxaad ka dhigataa tijaabooyinkan waqti qofka jaanis haayo, uusan buuqsanayn ama xitaa mashquul ahayn. Tijaabada 10 waana mid ugu dambeysa. intaan tijaabadani kuu sheegin, like saar hal mar muuqaalka, sidoo kalena noogu soo biir, wax badan ay inoo tahay. ma ku jecel yahay adiga? su'aal ayaan ku weydiiyey, ma ku jecel yahay? okay, waa qof ku jecel, laakiin maxaa caddaynaya jacaylkiisa? weli ma hubisay jacaylkiisa? waataan ku siiyey 9 tijaabooyin lagu hubin karo. maanta kadib yaan lagu gaadin, hana isgaadin. waxaan rajaynayaa inaad baska ila saarnaydeen. sahankeena waa 100 insha Allah guys. waxaan idinka rajaynayaa channelka inaad share garaysaan si uu gaaro asxaab badan oo ka faa'iideysan lahayd. waxaan filayaa hadda inaad fahanteen waxaan ka hadlayo. insha Allah waxaa inoo balanaa muuqaalka xiga oo xiiso leh. like-ta hala dhuumane dhac ku siiya. till then, mac salaama.